الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. waxaan u dabaaldegaynaa 58 guuradii 16 Juun iyo 1 Luulyo, laba maalmood oo taariikh dahabi ah ugu qoran dadka Soomaaliyeed meel kasta joogaan. waa laba maalmood oo ku suntan xurriyadda Israaciil labadii dal ee Soomaaliland iyo Soomaaliya oo jamhuuriyaddii cusbeedna loogu wanqalay jamhuuriyadda Soomaalida Somali Republic. Israaciil, Soomaaliland iyo Soomaaliya wuxuu hiigsi u ahaa xoreynta iyo mideynta shantii Soomaaliyeed si loo helo dal ama Soomaali weyn ka kooban. markii xornimada la helay, maamulka iyo shacabka Soomaaliland waxaa ku jiray dareen Soomaali jacayl ah oo xad lahayn. hase yeeshee dhinacii koonfurta dareenka mid la mid ah kama helin, waxaana isla markiiba khalad laga galay nidaamkii midowga kadib markii baarlamaanka laga ansixin waayay xeerkii Israaca iyo midnimada Act of Union ee Soomaaliland iyo Soomaaliya. taana waxaa ka dhashay in xisbiyadii keenay xorriyadda iyo midnimada ee Soomaaliland ka hor yimaadaan aftidii loo qaaday dastuurkii 61. isla sanadka markiiba ciidamadu waxay isku dayeen inqilaab lagaga noqonayay midnimada. inkastoo dowladihii rayidka ahaa ee dalka ka talinayay 9 sano ee ugu horeeyay ay dadaal geliyeen dhismaha dowladnimada, 1969 waxaa taladii dalka inqilaab militari ah kula wareegay ciidamada xukunka qabsaday. waxay sanadihii ugu horeeyay iyana muujiyeen waxqabad iyo dareen wadaninimo, hase ahaatee wuxuu dhaawac weyn ay u geystay dareenkii iyo wadajirkii ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan kii shacabka Soomaaliland. burburka qarannimada Soomaaliyeed iyo dhaawicii taariikhiga ahaa ee loo geystay dareenka midnimo doonka ahaa ee shacabka Soomaaliland wuxuu keenay in 18 May 1991 Burco kaga dhawaaqaan inay dib uga noqdeen midowgii ay la galeen Soomaaliya 1960. dhinaca koonfurtana kama jirin nidaam dowladeed ilaa iyo sanadkii 2000 markii loo dhisay dowlad ku meel gaar ah ama dowlado ku meel gaar ah oo shaqeeyay ilaa 2012. dowladdii rasmiga ahayd ee 2012 loo dhisay Soomaaliya waxay wada hadal la bilowday Somaliland, waxayna heshiis bishii January 18keedii 2014 ku kala saxeexdeen magaalada Istanbul. heshiiskaas oo qeexayay in la sii wada hadallada lagana dheeraado wax kasta oo abuuri kara khilaaf, isla markaana aan la siyaasadayn barnaamijyada horumarineed iyo kuwa bani aadamnimada. waxa wax laga xumaado ah in maanta iyada oo dadaal badan la geliyay in la soo gaarsiiyo heer laga wada hadli karo midnimada, inay dowladda maanta jirtaa mijaxaabisay dadaalkii loogu jiray in Soomaaliland iyo Soomaaliya ka heshiiyaan wada hadalladaas kadib markii ay ka gaabisay sii wadida wada hadalladii, isla markaana joojisay mashaariicdii horumarineed ee waxtarka u ahaa nolosha shacabka Soomaaliland. kadib markii aan la tashaday siyaasiyiinta iyo shacabka midnimo doonka ee muddada badan u soo dhabar adeegayay dib u soo celinta qarankii, waxa aan ugu baaqayaa madaxweynaha iyo xukuumadda maanta jirta in dowladdu dib u bilowdo oo u dardargeliso wada hadalladii socday ee Soomaaliland iyo Soomaaliya. 2 inay dowladdu qaadato mas'uuliyadda ka saaran sii wadida heshiisyada horumarineed ee beesha caalamku ku taageerayso shacabka Soomaaliland, meeshana laga saaro caqabadaha jira. 3 in xalinta colaadda ka taagan tukaraq dowladdu u marto wada hadal iyo hab nabadeed. waxaan Ilaahay uga baryayaa dadka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan, meel kastoo ay ku nool yihiin, in sanadkan sanadkiisa Ilaahay nagu gaarsiiyo bashbash iyo barwaaqo, in Ilaahay subxaanahu wa tacaala ina garansiiyo in wada jirkeena iyo midnimadeenu ka muhiimsan tahay kala qaybsanaanteena iyo dhibaatadeena kale. marka waxaan aad mar labaad iyo mar saddexaad ku celinayaa baaqaas in ay madaxweynuhu uu runtii qayb weyn ka qaato meel marintiisa. والسلام عليكم
waraxmat ullaahi wabarakaatu iyo hambalyo wanaag